maamulka isbitaalka martiini qeybo kamid ah waxay ugu dhaheen aawe reerkaaga aawe reerkaaga reerka aad sheeganayso maba ka dhalan miya adiga qof Soomaali ayaan ahay waxaan u shaqeynayaa dalkayga su'aashaas miyay qabataa horta isbitaal martiini waxaa xuquuqdiisa hela qofkii ku hayb ah maamulka isbitaalka waxaa kale xuquuqdiisa sax u heli kara qofkii xildhibaankiisa ama wasiirkiisa oo daba socdo WHO waa hay'adda caafimaadka adduunka wasaaradda caafimaadka dalka iyo maamulka isbitaal martiini waxay ka midaysan yihiin carqaladeynta iyo ku tagrifalka awoodeed ay u geysanayaan shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeynaya isbitaal martiini dadka isbitaal martiini ka shaqeeya waxay la aamusan yihiin haddii aan hadlo yaa wax siinaya haddii aan hadlo shaqada la iga burinaya sababta aan u hadlayo waxay tahay in dadka masaakiinta ee dulman ay xuquuqdooda helaan assalaamu calaykum daawadaashayda qiimaha leh soo dhawaada maantay waxaan rabaa arrin dhabka hadal ah inaan la wadaago taasi oo ah caqabadaha ka jira isbitaal martiini waxaa ka jira tacadiyo aad iyo aad u xoog badan kuwaasoo loo geysanayo shaqaalaha caafimaadka ee kala duwan ee ka shaqeeya isbitaalka ugu horeyn waxaan kugu bilaabayaa taariikhdayda magaciigu waa Dr. Samiir Cabdullaahi Bootaan hadda waxaan ka shaqeeyaa ama aan ka mid ahay shaqaalaha isbitaal martiini inta aan ku soo biirin ka hor bishii March sanadkii 2020 taariikhdu markay ahayd 15 bisha waxa nalooga wacay anagoo team dhaqaatiir isugu jirna kalkaaliyaal wasaaradda caafimaadka kadibna waxaa naloo sheegay inaan nala tababarayo musiibada dunida ka dilaacday ee coronavirus tababarkii markii aan galay wuxuu nagu qaatay muddo 2 maalin ah 15 ilaa 16 March maalinkii 16 waxay ahayd maalinkii kiiska ugu horeeyay ee corona laga sheegay xarunta Xalane anagoo tababar ku jirno intaas kadib markuu tababarku noo dhamaaday waxaan kala aadnay guryaheena 19 March waxa isoo wacay dhaqaatiir ama maamul ka tirsan wasaaradda caafimaadka kuwaas ugu wargeliyeen inaan si degdeg ah ku imaado xarunta karantiilka oo markaas laga dhigay dry portiga ama dekada qalalan qof walba soo yaqaan xarunta markii la iga wacay oo meesha tagnay aniga iyo tiimkii kale tababarka ila qaatay waxaan nagu la wargeliyay in xalay magaalada ay la keenay dad gaaraya ilaa 11 qof kuwaasi oo ka imaaday wadamada cudurku aadka uga jiray sidaas darteed laga shakisan yahay team waxay ka ahaayeen saraakiil waxay ka imaadeen Talyaani teamna waxay ka imaadeen China oo ilaa 5 qof ah dan waxaan la dhahay weena shaqadan gashin oo dadka u shaqaysiin kullu qof walba og yahay musiibadii coronavirus qof u babac dhigi kara uu iska yaray markiina loo sheegay inta badan asxaabtii way cabsadeen waxayna gadaal ugu laabteen guryahooda waxay dhaheen shaqadan ma geli karno laakiin daqiiqado yar oo fikiray waxa ii soo baxday inaan ahay dhakhtar caafimaad bartay inuu wax u taro naftiisa dadkiisa iyo dalkiisa waxaan go'aan ku gaaray inaan shaqadaas bilaabo noqdo dhakhtarkii ugu horeeyay ee shaqadaas bilaabay sababta aan ku go'aansaday waxay ahayd waxaan aaminsanay cudurkan hadda wadanka soo galo inuu soo ilaafaynin oo guri oo dhaafayo magaalada u soo jiri doonin kadib waxaan bilaabay shaqadii coronavirus kala tacaalidiisa markii aan shaqadaas bilaabayay maalinkaaseeto maysan oolin xarunta hand sanitizer xataa waxaan ahay qofkii suuqa bakaaro u tagay soo goobay waxa ugu fiican alkoolada ugu fiican heerka ugu fiican daawada ugu fiican ee la isticmaali karo maalinka khamiistaas ku shaqeeyay jimcaan kaliya shaqeynay habeenkii wiila shaqada iga bedelay dhakhtar kale maalinkii sabtiga ayaa waxa la keenay dad gaar ilaa 12 qof kuwaas oo nolol shaqeyn doona meeshana waxaan ugu siiyay contract oo ahay muddo 3 bilood oo ay maalgelinaysay hay'adda ACF soo namarayay wasaaradda caafimaadka ee dalka shaqadii ayaan sidii ugu jirnay dadkii aan u shaqeynayna wiilasha dhalinyarada ahayd waxa dhacday in laga baaray coronavirus muddo yar kadib hal wiil oo kamid ah laga helay kadibna waxa loo wareejiyay isbitaal martiini oo ahayd isolation center ama xaruntii cudurka lagu daaweynay muddo yar kadib oo meesha aan ka sii shaqeynay cudurkii magaalada ayuu aad ugu fiday kadibna shaqadii karantiilka halkaas ayaa lagu ekeeyay maadaama xanuunka wadanka dhex jiro oo laga xadidi karin waxaa nalooga wacay isbitaal martiini waxa inoo wacday agaasimiye markaas isbitaalka gacanta ku haysay Dr. Sumaya waxa weheliyay agaasimaha hadda isbitaalka jooga ee Dr. Jalaaluddin habeenkaas naloo wacay waxa naloo sheegay inaan nahay dhaqaatiir dalku u baahan yahay oo dadku u baahan yahay in dadkooda u shaqeeyaana ay waajib ku tahay haddii aan shaqo galnana inaan la xuquuqnahay qofka ka shaqeynayay oo naga soo horeeyay isbitaal martiini bishii Abriil 2020 waxaan ku biiray isbitaal martiini shaqaalihiisa markii aan ku biiray shaqadii sidii ayaan ku galnay contractigeena maadaama uu 3 bilood ahay wuxuu ku ekay bishii June contractigii maadaama naga dhamaaday hay'adda ACF waxay sameeyay waxa loo yaqaan extension markii ay sameysay waxa dhacday
in aniga iyo gabar kale oo kamid ah tiimkii karantiilka waliba aniga oo ahay qofka ugu horeeyay shaqadaas bilaabay in contract la iga tiro kadib agaasimi istaalka u tagay waxaan ku iri maxay tahay sababta aniga contract ay iga saartay aniga gabar markaa u tagna wuxuu noo sheegay in meel ka fiican meeshaas oo noo raadinayo waxaan lagu bedelay dad kale asaga la heeb ah kuwaas istaalka shaqeynaya waxa dhacday markii contract dadka loogu daray wuxuu ahaa 3 bilood 3daas bilood ay mushaarka qaadanayeen aniga iyo gabadhii kale oo markii hore u xaq lahayn waxaan ahayn intaas mushaar la'aan bishii July Agosto iyo September 3daas bilood mushaar la'aan ayaan ahayn waxa dhacday contract ay aad kala duwan istaalka yimid kadib bishii October ayaa waxaan la siiyay contract ka koobnaa 4 bilood oo kaliya October ilaa iyo January gaaray wuxuu ahaa hay'adii WHO 4 bilood markaa mushaar qaadanaynay waxaa dhashay sanad cusub oo ah 2021 isbitaalka hay'ado badan ayaa imaadeen oo ay kamid tahay BAC oo ay kamid tahay Save the Children oo ay kamid tahay WHO hay'adaha qaar contract hal sano ayay bixiyaan oo mushaar lagu siinayo shaqaalaha isbitaalka dhammaan shaqaalaha isbitaalkuna si siman ayay u shaqeynayeen waxa dhacday markaa ku dhahnay agaasimaha weyn aan ugu dartaa dadka ugu yaraan sanadka ama 6 bilood qaadanaya waxaan la dhahay WHO ayaa idin kugu daraysa 6 bilood saas darteed contractyadan hay'adahan kale iska dhaafa waxaan nagala saxiixay contract WHO oo 6 bilood ah mushaarkeena aan ku helayno soona maray wasaaradda caafimaadka heshiiska aan saxiixnay waxaan sugnay mushaarkanagi bishii koowaad ma lahan labaad ma lahan saddexaad ma lahan bil kasta waxaan weydiinaynaa maamulka xuquuqdanadii waa la soo wadaa waa la suuqiin daraya wixii isku darsada way soo socdaan laakiin markii dambe maxaa dhacay bishii afraad markii la marayo ayaa waxaan soo gaartay xamxam badan taasoo dhahaysa mushaarkiini ma imaan doono WHO na isbitaalka musuqmaasuq ka heshay mushaarna ma lihidin maxay tahay musuqmaasuqu dad badan waxay leeyihiin dad adinka in kamida ayaa hay'ada kala ka qaatay weena sida saxda ay ahayd dad aan isku shaqana oo isku qayb ka shaqeyno kana mid ahay dadkii contract WHO nala saxiixay ayaa hay'ada kala saxiixay ayadoo aan isla joogno u soo dhaceen mushaarkii hay'adaha kale qof kula mid ah oo isku shaqo tihiin ayaa waxa la siinayaa 1 2 3 4 contract 4 heshiis oo 4 hay'ado kala duwan marka la siiyo meeshii oo hal xuquuq heli lahay 4 qof xuquuqdiisa ay meesha ku qaadanaya waxa dhacday inaan anaguna mees xuquuq la'aan ku ahaan bil isku dhiibtay bishii shanaad bishii lixaad intaasna oo aan hadlaayo aan ugu yaraan la hadlaayo agaasima istaalkan leeyahay aniga xuquuqdayda aaway xagaan wax ka helnaa oo dad badan ayna leeyihiin dadkiina raasada عموما ورك سو دheeraadaba bishii lixaad ee sanadka markii ay dhamaatay xilligan dhamaaday kontraktiyo cusub in istaak laga saxayo waxaan la hadlay agaasima istaalka waxaan ku yiri agaasimani waxaan u baahanahay xuquuq ayaan u baahanahay markasta oo weydiiyo wuxuu leeyahay wadi wal soo wada laakiin waxa dhacday inaan habeen aan aad u carooday kadibna aan su'aalo garnaqsiyo badan aan weydiiyay su'aalahan weydiiyay waxay ahayd waana xaqiiqada ka jirta isbitaalka si aan aniga xuquuq u helo waxaan u baahanahay in aan la heeb noqdo ama aan ku reer noqdo maamulka isbitaalka su'aashaas markii aan weydiiyay waxba jawaab dhiga ma siinin mar labaad waxaan weydiiyay si aan aniga xuquuqdayda u helo waxaan u baahanahay inuu xildhibaankaygu daba socdo oo aan noqdo dhakhtar qabiil halkii aan ka noqon lahay dhakhtar qaran shalay markaan shaqadan galayay reerkaygu uma gelin waxaan u galay qaranka iyo dalka iyo dadka inaan ku difaaco su'aalahaas oo dhan waa su'aalo ilaa iminka aan isweydiiyo maxaa yeelay isbitaal Martiin waxa xuquuqdiisa hela qofkii ku heeb ah maamulka isbitaalka waxa kale xuquuqdiisa sax u heli kara qofkii xildhibaankiisa ama wasiirkiisa oo daba socdo intaas adaysu ku daba soconin ma jirto sabab ah xuquuq ku heshaan sanadkaas bishii toddobaad markii la gaaray oo soo sii waxa la igu yiri hadalkaagu su'aalahaagu qaldan yihiin mar dambe waxaan kala weydiinin kama dambeys waxa la soo gaaray bilihii dhexe oo maqnaa agaasimuhu isbitaal ayuu jiray marka uu soo laabtay waxaan kontrakti ayaa yaalay waxaan weydiiyay kontraktaas in lagu daro inta ka horeeyay waxaan la hadlayay agaasimuhu ku xigeenka isbitaalka maamulka xubin kasta oo kamid ah maamulka isbitaalka Martiin qayb kamid ah waxay ugu dhaheen reerkaaga reerka sheeganayso ma ka dhalan adiga qof Soomaali ayaan ahay waxaan u shaqeynayaa dalkayga su'aashaas ma qabataa horta dadweyne adika ay weydiinayay ma qabataa qof walba oo coronavirus dad aan neefsi karin hadli karin dhaqaaqi karin oo Soomaalida u shaqeynayna in mushaarkanagi ama xuquuqdanadii lagu yiraahdo la imaw reerkaaga la imaw xildhibaankaaga la imaw qabiilkaaga waa su'aal aad u xanuun badan sanadka gabagabadiisii maadaama 2021 aan mushaar la'aan ahay
saddex bilood ku soo horido 2021 aan mushaarkayga helin bishii 11aad waxaan raashay dad badan oo ku jira dawladda kuwaas oo igala hadla waxa dhacday markii dadka qaar aan u sheegay oo ay la hadlaan inuu agaasimuhu leeyahay hadda la xalinaya laakiin aysan noqon in la xaliyo qayb kasta oo kamida istaalka ayaan tagay maamulka ugu sareeyay ayaan la kulmay wasaaradda caafimaadka xubin kasta oo kamida waan tagay qof walba wuxuu ugu leeyahay xuquuqdaada waxa ku dhagan agaasimaha istaalka Jalaaludiin muddo dhowr mar ayaa la hadlay 2022 ayaa dhalatay sidii oo kaleeto sometimes shaqadii lagu cariirinayo waqtigii lagu xisaabtamayo wax walba iyadoo la sameeynayo haddana aan waxba lahayn maxay idin la tahay qof dhakhtar ah oo ka shaqeynaya isbitaal kadibna ay sugayaan waarid walaal iyo wax kasta oo fareesh ah shaqo inuu dalkiisa u shaqeeyo naftiisa u shaqeysto u soo baxay markii xuquuqdiisa oo qof hor istaago qof kale oo lamidana oo 3 meel 4 meel oo ka siiyo mushaar qofna u diido ogow qof degan ma jiro ma dhex degan isbitaal Martiini magaalada geeska ka deganahay bajaaj raacayna qarasha kugu baxaya baag adana waa laabane qarasha kugu baxaya shiftinayda gali oo 15 saac ka badan aan shaqeynayso waxa u baahan tahay waxa ku joogleeyda biyaha noqdaan cashaha noqoto ina isku dibarto Martiini muddo 2 sano ku dhow ina anigu qarash galiyo maahanay qarashiga ma soo gelin maanta marka maxay tahay sababta uu kaliftay ina hadlo sababta uu kaliftay ina hadlo waxay tahay tacadiga iyo ku tumashada xuquuqda oo aan kaliya ugu koobnayn in aan ka hadlo waxa tahay sababtaasi waa in wax laga bedelo Soomaaliyay waxaan nahay dad isku mid ah laakiin si kasto isugu mid ku nahay looma baahno in qofka lagu xagliyo gobolkiisa lagu xagliyo qabiilkiisa kaliya ma aan waxa jira gabdho ka shaqeynaya labadaas sano xaaladahaas coronavirus-ka kuwaas oo sidoo kale aan xuquuq helin saas ay tahay ka soo jeeda gobolada waqooyi ee dalka waxay ahayd qof marti oo asaguba magaalada marti ku ah xaaladii adkeed ee corona ka shaqeeyay in si gaar ah loogu warqabo laakiin waxay ahaayeen dadka ugu dulansanay oo meeshaas soo maray waxa arkaysaa ama jooga isbitaalka xamaali fara badan kuwaasi oo aan wax mushaara ama dhaqaala aan ku helin haddana dadkaas buka ee aan neefsan karin ee aan dhaqaaqi karin marna sariir ku riixaya marna wheelchair ku riixaya oo culays ka saaya habeenkaas soo shaqo galaya ama maalin kasta shaqo imaanaya dadka isbitaal Martiini ka shaqeeya ee aamusan wixii la aamusan yihiin dhowr qodob arinta ugu weyn oo aamusan yahay waxay tahay haddii aan hadlo yaa wax siinaya haddii aan hadlo shaqada la iga burinaya shaqada la iga burinaya aniga maanta maxay tahay markii alxamdulillah waxa aamsanahay inaan xirfado kala duwan leeyahay macallimo ayaa magaalada uga shaqeystaa isbitaal kale waa heli karaa shaqo kale waan abuuran karaa sababta aan u hadlayo waxay tahay in dadka masaakiinta ee dulman ay xuquuqdooda helaan aniga labadii sano oo xuquuq la'aanta ahay kulli waxa aaminsanahay agaasimaha isbitaalka iyo agaasimo ku-xigeenka iyo maamulka isbitaalka iyo waliba wasaaradda caafimaadka ayaa ka wada dambeeyay WHO waa hay'adda caafimaadka adduunka wasaaradda caafimaadka dalka iyo maamulka isbitaal Martiini waxay ka midaysan yihiin carqaladeynta iyo ku tagrifalka awoodeed ay u geysanayaan shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeynaya isbitaal Martiini in contract aad saxo 6 bilood ah oo WHO ay leedahay haddana ana hal bil mushaar ka helin taas waa tacadi aad u weyn dadka qaar waxay leeyihiin contractgiina WHO lacagta way soo bixisay laakiin dad kale ayaa magaalada ka qaatay dadka qaarna waxay leeyihiin WHO waxay heshay list isbitaal kamid ah inay meel kale wax ka qaataan ayadana ka qaataan sidaas darteed way soo laashay oo way joojisay oo wax mushaar lagu bixiyo wixii ay ahaataba haddii ay duplicate heshana anu duplicate ma ahayn oo meel kale kuma jiro mushaar meel kale kama helaynin sabab aniga mushaarkayga ku waayay meesha ma taalo haddii ay dad kale u dhaceysana waa tuugnimo oo bareer cada oo loo bareeray in xuquuqda dadka lagu doodsiyo maanta waxaan u hadlayaa waxay tahay waxaan rabaa firintaydan in la gaarsiiyo qof kasta oo wax ka bedeli kara ama ha noqdo hay'adihii ay qusayaan mushaarka bixiyo isbitaal Martiini ama ha noqdo madaxda dalka qof ka soo shaqeynayay musiibadii coronavirus haddana magaalada loo geliyay inuu qof dhaqaale la siiyo nala taakuleeyo wax walba loo sameeyo haddana aan wax xuquuq helin inay wax ka baxaan maahane in arinta wax laga bedelo dadka masaakiinta isbitaalka ku nool in wax laga bedelo kulli aniga qorshahaygu wuxuu yahay inaan dib u laaban wixii aan qabtay ummadayda dadkayga iyo dalkayga ayaa qabtay laakiin dadka hadda wali jooga ka baqaaya inay shaqo la'aan noqdaan waxay ku leeyihiin marka aan hadalno waxay ku leeyihiin maya waa la iburinaya marka dadka ka baqaaya inay shaqo la'aan noqdaan isku ilaalinaya rajada ah inuu subaxii soo tooso oo shaqo aado isku ilaalinaya waxa laga bedelo
wasaaradda caafimaadka isbitaal martiini musuqa ka jira mid xad ka baxsan waa shaqaale intaas leeg oo inta aragto qarasha lagu qaadanayo oo maalin kasta meel kasta laga leeyahay waxa la sameynaya mid kale waxa ugu dhaliyay barnaamijkan waxaan arkay maalmahan iyadoo WHO marti ka socota isbitaal martiini la keenayo la leeyahay waa loo mahad celinaya xiriirka fiican ay sameynayaan aaw anaga dhaqaalaheeni aaw mushaarkeeni aaw xuquuqda nooga maqan WHO ama santihiin dadkayga qaaliga ah sida wanaagsan oo la socoteen waxaan ka codsanayaa barnaamijka inaad share gareysaan meel kasta oo aad gaarsiin kartaan aad gaarsiisaan. Assalaamu calaykum.